إنا لله وإنا إليه راجعون mid ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan ka mid ah waardiyaasha jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama ayaa caawa goor 6 maqribnimo waxay rasaasi kaga dhacday mid ka mid ah ardayda ku jira kulliyadda engineering oo lagu magacaabo Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ku jira sanadkii labaad ee kulliyaddaasi sida ay xaqiijiyeen maamulka jaamacadda Amuud haddaba waxa la wadaagay ehelada qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumkaasi taasi tiiraanyale maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama madax dhaqameedka awdal taliska qaybta booliiska gobolka Awdal Allah u naxariistay ardaygan isagu geeriyooday iyo waliba askariga rasaastu kaga dhacday ayaa waxa la sheegay inay ka soo jeedaan bariga gobolka Sanaag ugu horeyn hadaba waxa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin barmaayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha jaamacadda Amuud magaalada Boorama Professor Saleebaan Axmed Guuleed waxaana halkaas ka sheegeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qadar Allah ma shaa facal ilaahay baa sidoo doonay yeelaba goor maqribkiya waxa nin askari xabad kaga dhacday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiiba samariiman Allah inaga wada siiyo uu inaga wada baxay arday mustaqbalkiisu soo ifayay buu ahaa sanadka labaad injineer ku jira sida uu noo sheegay professorku waxaanu ka xunnahay shilka dhacay aad baan uga xunnahay gobol ahaan iyo jaamacad ahaan baa waanu ka taxsadeenaynaa inankaas geeriyooday iyo askariga xabadu kaga dhacdayba labaduba waxay ka wada yimaadeen bariga Sanaag waxaanu leenahay dhammaantoodba ilaahay samiraha inaga siiyo shilkaas uu dhacay biliska gacanta ku haya askari biliisa buu ahaa baaritaan buu ku jiraa isagana kulli go'aankiisa biliskeennu ka sugaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan diraynaa tacsi tiiraanye leh oo ku dhacday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday ku jiray jaamacadda Amuud sanadkii labaad qaybta engineeringka rasaas kaga qaraxday arday askari ka mid ahaa waardiyayaashii jaamacadda waan ka xunnahay waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskiisii qaraabadiisii ehelkiisii degmada Boorama oo ay 5 sano ugu dambeeyay deganay jaamacadda Amuud iyo qaraabadiisa iyo gobolka iyo Soomaaliland baan ka tacsiyeenaynaa mar walba shilalku way dhacayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun askarigii gacanta geystayna wuu xiran yahay baaristiina way socotaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday sanadka labaad ee kulliyadda engineeringka jaamacadda Amuud ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliisa ay gaadhay arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xiran yahay booliiska ahaa ardaygana saas ku geeriyooday waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardayga geeriyooday oo ka ku dhuftay isagu ay ka wada yimaadeen bariga Sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardayga yagiiba ahaa inanka yagiiba ahaa kalnade qaranku u shaqeeyo booliis qaranka u shaqeeyo ahaa labadaba waa bahdin xaqana waa isku bahun xaqana waa isku bahun bay haayeen sida daraadeed ayaanu eheladii iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direena annagoo ka xun tiiraanyeysan inankaas oo sanadka labaad ah mustaqbal fiican runtii lahaa haddana ilaahay inama weydiiyo ciduu qaadayo isagun baa u taliyo fiisihi baa u yimiday fiisihi ilaahay oo horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar labaad iyo mar saddexaad annaga oo jaamacaddii mathalayna madaxdii kale la socoto madaxdii qarankan aan halkan la joogiyo kuwa gobolka iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaan u diraynaa geesooda qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa eheladii marxuumku ka baxay taasi tiiraanyada u diray waxaanay sheegeen in gacanta lagu hayo askarigii dilkaasi geystay ilaa haddana ay socoto baaris Allah u naxariistana Allah siiyo eheladii uu ka baxay iyo waalidiintii iyo walaalihii iyo qaraabadiina samiriye ibn Allah ka siiyo jaamacaddii iyo ardaydii kulliyadda ahaana samiriye ibn laga siiyo dhammaan dadka iyaga reer Awdal maanta halkan maamulkiisii iyo madaxdiisii dhaqankuba wada joogaan ku tiiraanyeysan ee ay naxdinta gaarka ku tahay samiriye ibn Allah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
halkan waxaa isugu nimidnay marxuumkaa dhintay ibraahim cabdishakuur ibraahim ilaahay naxariista siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo walaalihiina ilaahay samir iyo iimaan jamiila ha siiyo allah u naxariisto waxba sidii haddii la dhahdo muxuu ku dhacay lama idhaahdee maxay ku qabowdaa iyo maxay ku dawowdaa unbaa la idhaahdaa marxuumkaa ninkii gacantu kaga dhacday wuu xidhan yahay waa buliiskaana gacanta ku haya iyo xukuumadda iyadaa haddii la dhaahdo haysa waa siday ahaan jirtay dhammaan tarakadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo jaamacadihii iyo dhammaan ummadda waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gaar ahaan waalidiintiisii iyo walaalihii iyo sabir iyo Allah ka siiyo waxa isku kaaya keenay intayadaasina waad garanaysaano waxa weeye waa damqasho haddii mid gobolkan ay ku dhici lahayd ama mid gobolladan kale reer Soomaaliland ku dhici lahayd intayadaas iskuma nimaadeen intayadaas maanta iskuma nimaadeen laakiin waxa isku kaaya keenay cid kasta meel shafog ka yimid baa isku kaaya keentay taasaa maanta habeennimada xilligaa isku kaaya keentay waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gabigeennaba dhammaan tarakadii uu ka tagay sabir iyo Allah ka siiyo Hussein Ataye Gafna Universal TV Borama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mid kamid ah ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan kamid ah waardiyaasha jaamacadda Amuud ee magaalada Borama ayaa aawa goor 6 maqribnimo waxay rasaasi kaga dhacday mid kamid ah ardayda ku jira kulliyadda engineering oo lagu magacaabo Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim oo ku jira sanadkii labaad ee kulliyadaasi sida ay xaqiijiyeen maamulka jaamacadda Amuud haddaba waxa la wadaagay ehelada qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumkaasi taasi tiiraanyale maamulka gobolka Awdal ka degmada Borama madax dhaqameedka awdal taliska qaybta booliiska gobolka Awdal Allah u naxariistay ardaygan isagu geeriyooday iyo waliba askariga rasaastu kaga dhacday ayaa waxa la sheegay inay ka soo jeedaan bariga gobolka Sanaag ugu horeeyna daba waxa hadalka iska daba qaatay barasabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin barmaayirka degmada Borama Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha jaamacadda Amuud magaalada Borama Professor Saleebaan Axmed Guuleed waxaana halkaasi ka sheegeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qadar ma shaa facal ilaahay baa sidoo doonaya laba goor maqribkiya waxa nin askari xabad kaga dhacday Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiiba samariyeeman Allah inaga wada siiyo uu inaga wada baxay arday mustaqbalkiisu soo ifaya buu ahaa sanadka labaad injineer ku jira sida uu noo sheegay professorku waxaanu ka xunnahay shilka dhacay aad baan uga xunnahay gobol ahaan iyo jaamacad ahaanba waanu ka taxsadeenaynaa inankaas geeriyooday iyo askariga xabadu kaga dhacdayba